kulanti wanaagsan dowladda waddanka Itoobiya ayaa xabsiga ka sii deysay sarkaal sare oo ka tirsan qowmiyadda Oromada ee waddankaasi iyo maxaabiis kale oo iyaguna ka tirsan isla qowmiyadda Oromada kuwaasi oo loo haystay arrimo la xiriira xagga siyaasadda dowladda Itoobiya ayaa waxay sheegtay in maxaabiistaasi la sii daayay laga dhaafay dhammaanba dacwadihii loo haystay sarkaalka ugu magaca weyn ee ragga xabsiga laga sii daayay ayaa waxa la yiraahdaa Bakela Garba waxaana uu ahaa xogayaha guud ee ururka Oromadu ay leeyihiin Oromo Federalist Congress waxaana la xidhay bishii December ee sanadkii 2015 markaasi oo gobolka Oromiya ay ka jireen rabshado xoog leh oo dowladda lagaga soo horjeeda sarkaalkan la sii daayay ayaa markii hore waxa lagu eedeeyay dambiye la xidhiidha xagga argagixisada laakiin dacwadahaasi ayaa markii dambe la dhimay oo waxa laga dhigay inay ahaayeen inuu kicinayay rabshadahaasi warbaahinta taageersan dowladda waddanka Itoobiya ayaa xaqiijisay sii deyntiisa isaga iyo 7 maxbuus oo kale oo xabsiga laga sii daayay maxaabiista kale ayaa iyagana waxa laga dhaafay dhammaanba dacwadihii loo haystay ku dhawaad 6,000 oo maxbuus ayaa tan iyo bishii January laga sii daayay xabsiyada waddanka Itoobiya kuwaasi oo badankooda loo xidhay kacdoonadii ka jiray gobolka Oromiya wasiir